Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam meel kasta joogtaan. Kusoo dhawaada channelka. Markaa kugu horeyso deetaa fadlan subscribe noo saar like iyo share-ka. Maanta waxaa idin wadaa bur aad u macaan badan oo casriye ah, naftana u roon maasha Allah. Ciyaalkana ay ka heli doonaan insha Allah. La socod wanaagsan waa idin tusi doonaa sidaan u sameynayo. Meeshaan waxaa kusoo diyaarsaday weelkii aan ku qasi lahay burka. Hal koob oo caano aan ku shubayaa. Halkaas koob caano ayaa ku qasaa iyo hal qaando oo khamiir ah. Khamiirkana kaasa isticmaalayaa. Adiga ka haysata isticmaali kartaa, ani laakiin aan haystaa isticmaalayaa. Waa ka qaandada aad ma u buuxdo, xoogaa yar waaye. Qiyaas adag ugu filan insha Allah sameyso. Ani intaan qiyaasteeda waxaan ku qasayaa 2 koob oo bur ah. La socod wanaagsan daawasho wacan. Asxaabtaada la wadaag. Hal qaando sokor aan ku soo shubay. Qiyaasta sokortaada adaa taqaanid. 2 qaando ku soo shubay sida ilmaha si fiican ay u cunaan. Ilmaha waxay jecel yihiin wax macaan. Macaana laga raacay. Macaanka waxaa fiican inuu qiyaas ku ahaado. Macaanka badan ma fiicno. Markasta waxaan jeclahay inaan soo bandhigo waxyaalo guriga loogu baahan yahay. Haddana waxaa yar cusbo ayaan ku daray. La socod wanaagsan. Cusbada badan ma fiicno. Wax yar cusbo ah wali waa kasii kala reebay intaan soo shubtay. Markasta waxaan jeclahay inaan soo geliyo waxyaalaha guriga loogu baahan yahay aan idin sharxo. Dad badan ayaa jiro message soo direen maasha Allah. Weli iyagoo duceynayaan idahayaan aad ayaan kaga faa'iideysanay. Taas waxay tahay farxad iyo dhiirigelin. Caanihii iyo khamiirkii iyo sokortii markaan isku soo daray iyo cusbadii wax yar ka ahayd. Sidaan ayaa iskugu qasaysaa. La socod wanaagsan. Waxyaalo badan iga soo codsateen. Insha Allah waa soo geli doonaa waxyaalahaas iga codsateen. Markaa deertaan wax kasta waxay waqti leeyahay in la soo geliyo. Markaa step by step aan soo gelin doonaa insha Allah. Inkastoo waqtiga iska cariiri yahay laakiin waa dadaalaya inta tabarteeda insha Allah. Burka maanta idin wado buryaasha kale waa ku dugan yahay. Burkii waa taqaaniin sida loo sameynayo laakiin sidaan u sameynayo oo sameysanaysiin si ku dugan waaye. Haddana waxaan ku soo daray wax yar oo bakin ah qaandada afkeeda hore. Iyo waxaan ku darayaa hal qaando oo kastar ah. Kastarka kaasa isticmaalayaa adiga ka haysata isticmaal. Hal qaando markaa ku soo dartid waa isku qasaysaa kadib markoo uu qasmo burka ku daraysaa. La socod wanaagsan. Burkaan burkii oo burku tumbo ay dhahayn waaye laakiinse aniga waxyaalo kale aan ku dardaray oo bijiyaha iyo lagu cuni jiray waaye. Asagoo nooc kale oo la nafaqeeyay waaye. Ilmahana u fiican maasha Allah. Aad ka heli doontid adina markaa guriga ku samaysatid. Markale waxaan iga codsanayaa video-ga hadda aragtaan share gareeya like-ta iga iloobina dhiirigelin ayaa tahay like-ta subscribe samee. Asxaabtiina la wadaaga. Sidaas ayaan u soo qasayaa. Waa u jeedaa inuu kuskuuska inaa ka baabi'isid waaye kastarka. Hadhowtu wuxuu ka naqanayaa burka markaa ku dartid wuu kuskuusmaya ileen kastarka wuu adag yahay. Inaa si fiican u qastid waaye. Sidaan markaa u sameysid ciyaalku way jecel yihiin maasha Allah. Sidaan hadda ugu sameysid ciyaalka maanta dhan way kugu soo naqnaqanayaan. Waxaa meesha miis kale u saaraysaa. Xabad xabad si u cunayaan ayaka maasha Allah way dhimeynayaan. Ka faa'iideysi wacan.
burka ayaan kusoo daray 1 galaas. Inta adi qiyaastaada adaa taqaanid, laakiin aniga 2 galaas ayaan qasayaa. Hadduu kugu yaraado qoyaanka inta uu yahay, hadduu kaaga bato biyaha ama caanaha, waa ku darsan kartaa wax yar oo bur qiyaas leh, wax kasta qiyaas waaye. Qiyaastaada haddii isla ekaysiisid, maasha Allah wuu kugu soo baxaa burkaaga. Sidaas ayaa u qasaysaa, wax dhib badan maaha, easy waaye. Ciyaalkana u samee, casriye u sameyso, af-bilaaw u sameyso. Soomaali af-bilaaw loo sameysan jiray, laakiinse inta casriye ayaa loo sameystaa. Burka inaa aad u qaraacdid waaye, inuu isdhex galo cajiinka aa qasaysid, kuuskuusna oo kaa yeelanin, sida hadhow markaad dubaysid oo kugu noqdo doorsho camal. Aqli loo rabaa in loo isticmaalo, wax adag ma ahan. Wax hadaa isku daydid waa sameyn kartaa, maasha Allah. Jikada gal maanta hadaa saxdid beri, maanta hadaa qaladid beri waa saxaysaa. Saas lee wax lagu bartaa, maasha Allah. Ka faa'iidaysi wacan u sameyso gurigaaga. U sameyso gurigaaga iyo ciyaalkaaga. Burkaan noocyo badan loo sameeyaa, markaa waan idinka faa'iideynaa insha Allah. Noocyada kaleetana waan soo gali doonaa asoo waxyaalo kale lagu qasaayo. Haddana wax yar bur ayaan ku daray, wax yar wuxuu iga noqday jileec. Hadduu kaaga bata biyaha ama caanaha aad ku qasaysid, wax yar bur aad ku darsanaysaa. Haddana ayaa usoo qasay, waa soo qaraacay, maasha Allah. Sidaas ayaa la rabaa cajiinka inuu kuu noqdo. Xoogaa ayaan soo daboolayaa nus saac camal. Kadib birtii aan dib ka soo saartay, aan saliida ku shubanayaa insha Allah. Sidoo noqdana waa arki doontiin oo u soo qamiiray. Saliida aad ayay kaa kululaanin. Bur kasta markaa sameynaysid, saliida aad hadaa u karkarisid burkaaga, hoos cajiin ka naqanaa, korna aad ciyow kaaga bislaanaa. Marka burki waa kanaasan ayuu usoo qamiiray, maasha Allah. Haddana hoos ayaan celinayaa cajiinkii, waa isku qasayaa. Markaad dubaysid inaa celisid waa haddana aad dubtid. Sidaan ayaa iskugu celiyay. Saliida waatana indhe soo yeelato wax yar, kuleel yar ay soo noqotay. Zaid ayay kaa kululaani. Wax yar saan markay u soo kululaato, ku rid burka. Xoogaa inay waxa waaye oo burka ku jiro waa dibka. Haddii kala dhexdu wuxuu kaa naqanayaa cajiin. Dabka inaa hoos ka dhigtid waaye, inaad dabka hadaa dheeraysid saliida aad u kululaanaysaa. Burkaagana cajiin kugu yeelna. Marka waxaan igu soo celcelinaa waxaa waaye inaa fahantiin sida u sameynayo, sida ay tahay saliida. Waa ka saartaan oo ku soo ridaya. Waa la socod wanaagsan sida u sameynayo, maasha Allah. Asxaabteedu waxaan jeclahay wax kasta inaa tartiib idinkugu sharaxo. Sida u fahantiin ciyow u sameysataan. Bini'aadamka si tartiib ay wax u fahmaa waxaan igu soo celcelinaa waxaa waaye sida u fahantiin, maasha Allah. Ka faa'iidaysta. Burka sidaan ayaa ugu soo ridray, maasha Allah. Markuu dhinaca kale kaga guduto, mid kasta markuu dhinaca oo ka guduto gedi, dhinaca kale u rog. Markuu kor kaaga khalalo cajiinka dhan oo ka khalalo gedi, mid kasta sidaas u gedi. Laakiin haddii asagoo cajiin gedisid, wuxuu kaa naqanayaa haddana dhexda saliid ka galaa. Waa kaasa sidaas quruxda badan ayuu noqday kalarkiisa. Caadi ma ahna ku dhahay, maasha Allah. Markasta inaa kor taagnaatid waaye, gedgediskii soo bislaadaba sidaas u gedisid, maasha Allah. Haddii aad ka tagtid waxaa laga yaabaa inuu kaa gubto. Sidaan lee u gedgedi halkii bislaado. Kii oo saan dhinaca kale kasoo guduto ka bixi, kii gedis rabo gedi. Maasha Allah. Sidaas lee ku soo waday, wax dhib badan ma ahan. Wax easy waaye, sameyn kartid. Ka faa'iidaysa asxaabtaada oo maxaa lahaayay dadkaaga ugu faa'iiday u share garay, maasha Allah.
gurigiina ugu faa'iideyso. Hadaa gabar la qabo tahay ciyaal leedahay maasha Allah ku yahay ciyaalka galabtii markay casriye camal ugu sameyso. Martida xataa iyadoo ku fadhisaa qasi kartaa oo dubi kartaa inta u sheekeynaysid wax yar baradha soo qaadanaysa. Anaga hadda baradha ku cunayna waa arki doontiin. Maasha Allah baradhadii as markaa isku qabsatid iyo basbaaska maba ka sheekay karti macaankiisa caadi ma ahan wallahi. Baroowey idikana Soomaaliya ku soo xasuusanaya burkaaneeti markaa aragtid baar bajiye meesha la ama baar jilbi jabsi ninkii yaqaano maasha Allah. Bajiyo waxa kan yaa la isku darsan jir laakiin burkaaneeti saan oo loo qasno biyo iyo waxa ku qas jireen iyo cusbo iyo wax yar sokor ah macaan oo ahaan jira basbaaska biyaha laga dhigaayo la isku qasto caadi ma ahan ku dhaca. Markoo sidaan u bislaado waa ka bixinaysaa diyaar waaye. Waa kana hadana sidaan ayaa u soo diyaarsanay. Hayehe anaani dhadhaminayo dhadhamiska iyo macaankiisa anaani sheekeynayo idikana sameysta guriina u sameysta sidaan oo kaleete dhadhamiya akhbaar igu soo celiyo insha Allah. Macaankiisa waa idin salaamay meel kasta joogtaan sidaas iyo nabadgelyo.